الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قرآنك كريم كأهي سكول أيو أدلعي وركوده أو عدي قفكوده وغانا فالوضي إن هذا لدى النبي أيهين وحي كيمي حق ربي قريشي waxay ku sheegtay quraanka khuraafaad iyo sheekooyinkii dadkii hore si looga jeediyo dadka hadallada alle mar anadar bin Harith wuxuu Quraysh ku yiri kulanka Quraysheedow waxa idinku habsaday arrin aad xeeloweydeen Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wuxuu dhexdiina ka ahaa markii hore inaan da'yar oo aad dadka ugu jeceshihiin oo idinku run badan idinku amaano badan markii aad fooradiisa cirro ku aragteen oo wuxuu idinla yimid baad tiraahdeen waa sixiroole wallahi boosan sixiroole ahayn sixiroolayaasha waa soo aragnay waxa fuufkooda iyo guntimahooda iyo waxa tiraahdeen waa faaliye maya wallahi boosan faaliyana ahayn waa soo aragnay faaliyayaasha iyo sida ay wax yeelaan iyo waxay tiriyaan oo waxa tiraahdeen waa gabiya maya wallahi boosan gabiya ahayn gabay waa soo aragnay noocyadiisa kala duwanna waa soo dhageysanay luuqihiisa iyo tixihiisaba oo waxa tiraahdeen waa waalay may wallahi boosan u waalayn waalina waa naqaan oo ma uu laha suuxid iyo wiswis iyo isku daran midna Qurayshay xaalkiina ka tashada wallahi arrin weyn baa idinku habsatay waxa la sheegay in anadar dabadeed uu aaday Xiira oo uu ka soo bartay sheekooyinkii boqoradii Faris markaas buu markii uu rasuulku sallallahu alayhi wa sallam gole ka hadlo oo dadka alle ku xusuusiyo oo halista ciqaabtiisana uga digo baa waxa u daba mari jiray anadar oo oran jiray wallahi boosan Muhammad iga sheeka fiicnayn markaas buu wuxuu ka sheekayn jiray boqoradii Faris oo markii uu dhameeyo oran jiray wuxuu iga sheeka wanaagsanaa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Ibn Abbas wuxuu wariyay in anadar soo gatay gabdho heesa oo markii uu maqlo nin diinta xaggeeda u weecday uu midood ku salido markaas ay mar cunto siiso oo mar waraabiso marna u heesto oo diintu uu naco oo ka noqdo oo uu xaggeeda u weecdo waxay la galeen gorgoro ay u galeen inay islaamka iyo jaahilnimada heshiisiyaan oo meel dhexe isugu yimaadaan waxay soo jeediyeen inay iyana waxyaalaha ay aaminsan yihiin ay qaar ka haraan nabiguna uu diintiisa qaar ka haro Ibn Jarir iyo Adabarani waxay wariyeen inay mushrikiintu rasuulka sallallahu alayhi wa sallam u soo jeediyeen inuu ilaahiyadooda sanad caabudo iyana ay rabbigii sanad caabudaan warin kale waxa ku sugan inay yiraahdeen hadii aad ilaahiyadayada ogolaatid annaguna ilaahaaga waa caabudayna Ibn Ishaq wuxuu wariyay oo yiri rasuulka sallallahu alayhi wa sallam oo Kacbada ku dawaafaya baa waxa hor istaagay al-Aswad bin al-Muttalib iyo Walid bin al-Maqira iyo Umayya bin Khalaf oo ahaa rag waayeel ah oo tulka dhexdiisa magac ku leh markaas ay yiraahdeen Muhammadow kaalay aan caabudno waxa aad caabudo adiguna caabud waxa aan caabudno arrinka aan wadaagno oo ha inaga dhaxeeyo oo hadii waxa aad caabudo uu ka khayr badan yahay waxa aan caabudno saamiga iyagaan ka qaadanayna hadii waxa aad caabudo uu ka khayr badan yahay waxa aan caabudnana saamigaagaad ka qaadanaysa markaas buu Allah subhanahu wa ta'ala soo dejiyay suurada qul yaa ayyuhal kaafiruun gorgorada iyo wada hadaladii leetay sidaas buu alle subhanahu wa ta'ala ku qaadacay oo ku gooyay arrimaha kala duwanna waxay u egyihiin inay marar kala duwan ay gorgorada isku dayeen mushrikiintu hababkaas kala duwan oo ay diinta faafinteeda uga hortagayeen bay midba mar ku shaqeynayeen laga soo bilaabo markii diinta shaaca laga qaaday sanadkii afraad ee nabinimada bilowgiisii waxayna qaadatay toddobaadyo iyo bilo inay hababkaas ku ekaadaan oo aysan wax cadaadis iyo ciqaab ah u tallaabin laakiin markii ay arkeen inaysan hababkaasi wax dheef ah u soo hoynayn diin faafideeda aysan hor istaagayn bay mar labaad kulan isugu yimaadeen oo ay dhiseen guddi ka kooban 25 xubnood oo duqeydii Quraysheed ah oo uu gudoomiye u yahay Abu Lahab oo ahaa nabiga adeerkii Ruma markii ay wada tashi iyo fikir dheer galeen waxay guddigu nabiga iyo asxaabtiisa ka qaateen go'aan adag
waxay go'aansadeen inaan waxba laga reeban la dagaalanka islaamka iyo dhibidda rasuulka iyo ciqaabidda dadka islaamaya iyadoo lagu fulinayo nooc kasta oo ciqaab xanuun badan ah. go'aankaas bay qaateen oo goosteen inay fuliyaan, arrintaasina muslimiinta tabarta yar in lagu fuliyo aad bay u sahlanayd. rasuulkuse wuxuu ahaa nin haybad iyo xushmad leh oo cadow iyo gacalba ay ka haybaystaan, oo aan xumayn lagula dhiiran karin. inay xumaysana kumay dhicin cid aan ahayn makasta dadka ugu liidata. intaa ka sokowna waxaa difaacayay oo garab taagnaa Abu Daalib oo ka mid ahaa ragga tirsan ee Maka dhexdeeda asal ahaanba laga dambeeyo oo la weyneeyo, oo aan cidina ku dhicin inay magantiisa u gacan dhaafto oo banaysato maxastiisa. arrimahaas baana Quraysh walaac geliyey oo waxqabadkoodii curyaamiyey. wayse u gegsan waayeen inay sii samraan oo iska fiirsadaan diinta oo faafaysa oo fara kulul ku haysa inay ka takhalusto hogaamintoodii diineed iyo danahoodii adduunyo, oo waxay bilaabeen iyagoo Abu Lahab hogaaminayo inay rasuulka ku xadgudbaan oo xumeeyaan. Abu Lahab halka uu rasuulka ka istaagay maalintii u horeysay buu ka istaagay iyadoo aan Qurayshi dan ka lahayn. horay baana u soo aragnay sidii uu u xumeeyay rasuulka markii uu xigtadiisa isugu yeeray isagoo waaninaya, iyo markii uu dadka oo dhan kula hadlay buurta Safa dusheeda. waliba markii dambe af kaliya kuma ekaane rasuulka dhagaxyo buu ku tuuray sallallahu alayhi wasallam. Abu Lahab wuxuu labadiisii wiil Cutba iyo Cutayba la kala oran jiray ku daray labadii gabdhood ee nabiga sallallahu alayhi wasallam oo Ruqiya iyo Umm Kaltuum la kala oran jiray. intaan rasuulka la soo bixin, markii rasuulka la soo dirayna wuxuu labadiisii wiil ku sanduleeyay inay gabdhaha nabiga furaan, waana uu ka furay isagoo nabiga ku xumaynaya. markii Cabdullaahi dhintay, waa wiilkii labaad ee nabiga Abu Lahab waa farxay oo bishaaraystay, oo inta saaxiibadii u tagay buu yiri bishaaraysta Muhammad waa goblamay. waxaan kaloo hore u soo aragnay in Abu Lahab rasuulka sallallahu alayhi wasallam dabageli jiray isagoo dadka ku diri jiray oo dacaayad iyo beenin ku hayay. waliba taas waxa u sii dheeraa mararka qaarkood inta dhagax qaato buu rasuulka ku medi jiray oo dhig cirbaha ka hoori jiray. naagtii Abu Lahab Arwa binti Harb oo Abu Sufyaan walaashi ahayd kama cadowtinimo yarayn ninkeeda, oo dhinaceedaba iyana rasuulka sallallahu alayhi wasallam uga haysay colaadin iyo dagaal, oo waxay soo guri jirtay qodxo oo ilinka iyo dariiqa nabiga dhigi jirtay habeenkii. waxayna ahayd naag carab dheer oo rasuulka afkeeda ku salida oo ku taagta. waxayna nabiga ku haysay masabid been abuur iyo dhagar, iyadoo fidno iyo dagaal ku kicin jirtay mar walbana nabiga sallallahu alayhi wasallam. sidaas buuna quraanku ugu tilmaamay xaaba gurid badan, maxaa yeelay waxay xaabayn jirtay oo hurin jirtay dab diro iyo dagaal. markii ay maqashay quraanka iyada iyo ninkeeda ku soo degayna waxay u tagtay rasuulka sallallahu alayhi wasallam oo Kacbada agteeda fadhiya, Abu Bakarna uu la joogo iyadoo dhagxaan gacanta ku sidata. markii ay soo dul istaagtayna waa laga indhasaabay oo cidaan Abu Bakar ahayn waa arki weyday. markaasay tiri, Abu Bakarow aawe saaxiibka, waxa isoo gaartay inuu icaayay. wallahi haddii aan heli lahaa dhagaxaasan afka kala dhici lahaa. wallahi anigu gabaydaar baan ahay. dabadeedna waxay tirisay, waa ceebaysane aan caasinay, amarkiisana aan diidnay, diintiisana aan nacnay. dabadeedna waa ay iska tagtay. markaasuu yiri Abu Bakar, rasuulka allow ma kula tahay inay ku aragtay? wuxuu yiri nabigu sallallahu alayhi wasallam, ima aanay arag oo ilaahay baa iga indhasaabay. Abu Bakar al-Basaar al-Qisaad oo qisadan warinaya wuxuu ku daray, markii ay Abu Bakar soo dul istaagtay bay tiri, Abu Bakar saaxiibka baana aflagaadeeyay. markaasuu Abu Bakar, maya, rabbigii dhismahan lahaa baan ku dhaartay, gabay ma tiriyo, afkiisana sooma mariyo. markaas bay tiri, run sheeg baa tahay. Abu Lahab rasuulka sallallahu alayhi wasallam sidaa u galaya waa adeerkii runa oo la daris ah oo ay guryahoodu isku dhagan yihiin. darisyada kalena in yar ma ahee sidaa oo kale
bay rasuulka sallallahu alayhi wasallam u dhibi jireen inta uu gurigiisa joogo. qaarkood xitaa waxay samayn jireen rasuulka oo tukanaya bay calool ari korka ka saari jireen. rasuulka sallallahu alayhi wasallam mar waliba waa ka sheegan jiray darisnimo xumidaas oo oran jiray reer cabdimanaafow darisnimada sidaan ihi maxay ahayd. hadalkiisase dan uma geli jirin maxaa yeelay waxay aad ugu tiimbanayeen gef iyo xumaan. البخاري wuxuu ka wariyay Abdullah ibn Mas'ud Allah ka raali noqdee nabiga oo ku tukanaya Kacbada agteeda. Abu Jahl iyo ragiisana ay fadhiyaan baa qaarkood waxay is yiraahdeen yaa mandheerta geela reer Hebel keenaya Muhammad dabarka ka saaraya. markii uu sujuudo saakii qoonka u habaar qabsanaa baa soo baxay waa Uqba bin Abi Mu'ayth oo inta keenay oo sugay buu markii uu sujuuday dabarkiisa labada garab dhexdooda ka saaray anigoo u jeeda oo aan waxba u tari karin. allow maan tabarhayo markaasay qosol la daateen oo farxad iyo kibir lugaha ku rabteen. rasuulkuna sallallahu alayhi wasallam waa iska sujuudsanaa oo madaxa ma u qaadi jeer ay Faatima timi oo ka riday wixii dhabarka ka saarnaa. markaas buu inta madaxa la kacay yiri ilaahow Quraysh qabo 3 jeer. markaasay ka xumaadeen habaarka uu habaaray oo waxay arkayeen beledkaas in baryada lagu ajiibo. dabadeedna iyagii buu magacaabay allow Abu Jahl qabo oo Utba bin Rabi'a qabo oo Shayba bin Rabi'a qabo Walid bin Utba qabo ilaahayow Umayya bin Khalaf qabo Uqba bin Abi Mu'ayth qabo. mid toddobaadna wuu sheegay ma xifdin. kii naftaydu gacantiisa ku jirtay baan ku dhaartay waxaan arkay intii rasuulku tiriyay oo goobtii Badr wada lagdan oo ceelkii Badr lagu gurayo. Umayya bin Khalaf markii uu rasuulka sallallahu alayhi wasallam arko buu il iyo afba jabin jiray oo waxa walaalkii Umayya bin Khalafna waxay saaxiib gaar ahaayeen Uqba bin Abi Mu'ayth. Uqba baa maalin rasuulka sallallahu alayhi wasallam ag fariistay oo diinta ka dhageystay. markii ay taasi Umayya bin Khalaf gaartay waa uu ku canaantay oo ku eedeeyay wuxuuna amray Uqba bin Abi Mu'ayth inuu rasuulka candhuufo wajiga uga tufo waana uu yeelay. Umayya laf ahaantiisuna waxba uu lama kala hari jirin dhibida rasuulka sallallahu alayhi wasallam. xitaa intuu laf bolol ah soo qaatay oo burburiyay buu budadeedii ku bitiyay xagga rasuulka oo yiri ma laftaas bololka ah oo budooday baana leedahay waa la soo nooleyn doona. waxaana ku soo degay aayadaha suurada Yaasiin u dambeeya. Akhnas bin Shurayq asqafina waxa ku soo degay 9 aayadood oo sida uu ahaa sifaynaya. Abu Jahlna marmar buu rasuulka u iman jiray oo quraanka ka dhageysan jiray dabadeedna waa iska tagi jiray oo ma uu rumayn jirin mana uu maqli jirin mana dhowrsan jirin oo ma cabsan jirin ee rasuulka ayuu afka ku dhibi jiray oo jidka Alle buu hor istaagi jiray dabadeedna isagoo isfoohaarinaya oo sharka uu falayo ku faanaya buu socsocon jiray isagoo la moodo inuu wax sharaf leh falay. markaas baa waxa isna ku soo degay aayada quraanka kariimka ka mid ah. maalintii koobaad oo uu arkay rasuulku sallallahu alayhi wasallam oo xaramka ku tukanaya buu salaada u diiday oo ka reebay. misna mar kale buu arkay rasuulka oo Kacbada agteeda ku tukanaya wuxuu yiri Muhammadow waanan waxa kan ka reebin waana u hanjabay. markaas rasuulkuna sallallahu alayhi wasallam si adag u canaantay oo u goodiyay. markaasuu yiri maxaad igu hanjabaysaa Muhammadow wallahi aniga waadigan u xisbi badan. markaas baa Allah subhanahu wa ta'ala quraanka soo dejiyay arinta. mar kalena waxa la yiri rasuulkii buu ku abiyooday. markaasuu rasuulku sallallahu alayhi wasallam shaarkiisa qabtay oo ku ceejiyay oo gilgilay. markaasuu yiri cadawgii Alle ma aniga baad ii hanjabaysaa Muhammadow wallahi baydaan adiga iyo rabbigaaba waxba qaadi karin. waxa labadeeda buurood maka dhex marana aniga baa u awood badan. Abu Jahl markii goodiga cad loo soo jeediyay kuma uu waana qaadan oo caaqnimadiisii iskama dayn ee khayr darro iyo shar buu sii kororsaday.
walaalayaal darsigani maanta halka ayuu inoo joogayaa. inta aynu darsigan darsi la mida isugu iman doono waxaan idinkaga tegayaa ammaano allah iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.